kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qaybtii labaad ee sheekadii ma waxaan u dhintay jacaylkii Nagaad waxayna qaybta koowaad ee sheekadu inoo maraysay Cabdulaahi iyo Nagaad oo isku raacay filim markaasi cusbaa oo ay aad u daneenaysay Nagaad inay daawato hase ahaatee waxa lagu soo rogay Nagaad markuu filimkii bilowday caajis iyo culays uu la yaabay Cabdulaahi meel ay gabadha uga yimaadeen haddaba waxa uu weydiiyay Cabdulaahi inantii miyaa daalan tahay ma isaga baxnaa filimka hase ahaatee Nagaad ayaa ugu jawaabtay maya waa caadi waynu daawanaynaa dareenkeedu ma uusan ahayn mid ay farxadi ka muuqato Nagaad sidoo kale Cabdulaahi waxa uu dareemay fariimo qoraal ah oo si joogto ah taleefankeeda gacanta ugu soo dhacayay oo ay intaasi ka jawaabaysay waxaana galay hinaase wuxuu is yiri ma nin kale ayaa Nagaad kaala bixi doona ma arin aad yeeli kartaa sidee baadse wax uga qaban kartaa siday Nagaad fariimihii uga jawaabaysay isaguna filimkii u daawanayay ayuu arkay Nagaad oo iska gamaaday Nagaad oo ahayd gabar aad u qurux badan ayuu Cabdulaahi kula dhaqaaqay daymo waxa ayna u noqotay fursad uu indhaha uga buuxsan karo gabadha noloshiisa bedeshay maadaama uusan indhaha u dhamayn karin marka ay sheeko wadaagayaan Nagaad ayaa goor dambe soo baraarugtay oo ka raaligelisay hurdada la tagtay habeenkaas iyadoo oo daalan caajis badanina ka muuqdo ayay filimkii dhamaysteen intii ay sii socdeen ayaa dhowr taleefon ku soo dhaceen Nagaad niman kale ayaa la soo hadlayay mid walbana waxa ay ku lahayd waan kugu soo celinayaa muraad kama uusan lahayn Cabdulaahi ragga badan ee Nagaad la sheekaysanayso maxaa yeelay isaga ayaa ah qof furfuran oo jecel inuu asxaab badan yeesho isla markaana isuma qabo qof jecel inuu qofka ay saaxiibaan u taliyo ama ku amartaagleeyo gurigiisa hortiisa ayay ku dejisay waxauna Cabdulaahi durba degdeg isugu tuuray sariirtiisii ceebla hase ahaatee habeenkaas Cabdulaahi hurdo badan muusan ladin oo kolba waxa uu go'onayay gabadha uu jecel yahay iyo sidoo ugu sheegan lahaa waxa gubaya laakiin tilaabo kasta oo uu dhanka u qaado waxa is horgoynayay cabsi daran oo lagu saladay Nagaad shaqada ay hayso waxa u dheeraa oo ay dhigataa kuliyad in ay jaamacad gasho ayay aad u daneenaysay waxbarashadii ayaa qayb badan oo kamid ah ku adkaatay wuxuuna Cabdulaahi u balan qaaday inuu ka caawiyo casharada galab kasta kolka ay shaqooyinka dhameeyaan ayay israacaan oo casharadii la soo dhigay iyo shaqooyinka laga doonayo si wada ambaqaadaan ilaa ay saqda dhexe gaadho miis bay xisaab kaga wada shaqaystaan laba kursi oo isku dhajisan bay aqoon kombiyuutar iskula eegaan dareen jacayl oo xidid walba ku baxay ayaa Cabdulaahi u galay Nagaad si uu ugu sheego waxa haya ayuu garan waayay mar walba waxa madaxiisa ku mudnaa oo uu ka baqayay armay maya ku tiraahdaa sidee eraygaas u wajihi kartaa dhaawaca diidmadaas u geysan karta naftiisa ayaa fulay aan ku dhac lahayn ka dhigtay maalin kasta oo ay kulmaan taleefan kasta oo ay ka wada hadlaan iyo isu imaansho kasta oo ay wadaagaan waxay sii xoojinayeen jacaylkii uu u hayay Nagaad 24 saacadood wax kasta oo uu qabanayo waxa ay Nagaad noqotay qayb ka mid ah markasta oo ay damacdo inay taleefon u dirto inta aysan garaacin ayuu kaga horeeyaa way ku naxdaa waxa ay moodaa inuu sii ogaa dareen baa ugu xirmay warwar iyo baqtin joogto ah oo uu ka qaba inay Nagaad dhaafto oo ay cidlayso ayaa oontii ka jaray ciro uusan lahayn ayaa ka soo yaacday Filsan oo ahayd gabar ay aad saaxiib u yihiin oo ay sirta isku qarsadaan ayaa dareentay isbedelka ku dhacay Cabdulaahi maxaa kugu dhacay maalmahan ayay weydiisay waxba maxaad aragtay ayuu Cabdulaahi ugu jawaabay Filsan walaalkaygii khaaliga ahaayo waan ogahay waxa ku haya ee runta ii sheeg ayay tiri Filsan oo si waaya aragnimo leh ula hadlaysa Cabdulaahi oo wali isyara adkeenaya ayaa ku yiri maxaa i haya waa iyada Soomaha runta ii sheeg ayay Filsan kula kaftantay Cabdulaahi waxa uu garan waayay si uu uga baxsado Filsan oo ah
qof ay si wanaagsan isku yaqaanaan oo xitaa guurkeedii arooskeedii iyo dhismihii reerkeeda oo dhan uu gacan weyn ka geystay miyuu saqiran karaa xanuunka haya waa nagaad Soomaha qofka aad u bugtaa ayay iyadoo indhaha iyo sanka jees u dhaqaajinaysa ku tidhi Cabdullaahi afkii baa juuqa gabay isla hadal iyo haddaan haa idhaahdo maxay kugu oran doontaa iyo su'aalo badan xalkooda ayay maskaxdiisii ku mashquushay kama sugana waxay tidhi Filsan gabadh baan ahay rag baan soo arkay kuwa jacayl ku dhacay baa igu dul ooyay la hadal inanta aan ku guursada ku dheh maxaad uga baqaysaa baan kuugu qaadayaa in aan hadiyad qaali ah kuu keeno arooskaagana ka tumo weliba ciyaarta Isbaanishka ah ee salsada la yiraahdo ka ciyaaro ayay kula kaftantay Cabdullaahi oo u eg sidii qof waran beerka lagaga taagay ayaa si xoog leh u eegay Filsan markay tiri nagaad aan ku guursada ku dheh wuxuu si hoose iskula murmay miyay Filsan waalan tahay haddii lagu soo diido wax kugu dhacaya miyaanay ogeyn mi inaad isdisho ayay doonaysaa markaasuu ku yiri isaga oo naqasku dirqi ku yahay Filsan waxa aanan samayn karin ha igu qasbin miyay dirqinaysaa qiil bay u furaysaa miyaysa taasi isaga u muuqataa waxa kaliya ee niyadiisa ku mudan waa maya iyo jabkiisa oo isbarkaday Filsan oo dejinaysa niyadana u dhisaysa ayaa waxay ku tidhi walaalkayga khaaliga ahaayow haddii ay maya ku tidhaahdo adduunyadu dhammaan mayso adigana wax kaa go'ayaahi ma jiraan waad ka samraysaa uun niyadaada ayaad inantan yar ee ku waashay ka saari lahayd maya ma yeeli karo Filsanay adigu axsaan ii samee oo ah ii soo ogow galgacaylka ay nagaad ii qabto inta uu la eg yahay ayuu Cabdullaahi Filsan faray isaga oo taladeeda ka baqaya waxa uuna cimri dherer ka dhiganayay sheekadaas hadba gees isaga sii jiitamaysa fulaynimadiisa aanan falaadhaha jacaylka u bareeri karin ayuuna marmarsiyo u doonayaa cid u xil qarisa oo inantaha iyo maya mid uun uga keenta ayuu doonayaa waa hagaag ayay tiri Filsan anigu waan waraysan karaa laakiin ninka hadhow ay tahay inuu xabada isku dhiga waa adiga ayay tiri iyada oo qosol yarna u sii raacisay ma waxaan u dhintay jacaylkii nagaad waa sheeko jacayl oo qalbigaaga dhaqaajinaysa waa tabintii Nuur Shariif Shaacir waxaana qalinka u qaatay abwaan Cabdullaahi Cawad haddaba si aad uga bogato waayihii jacayl ee nagaad iyo dibanahan uu caalamku ka heshay subscribe sar channelkeena Aayaha Nolosha TV lana soco habeen kasta oo Axad ah